injiilka sida Matayos u qoray cutubka 20aad boqortooyada jannadu waxay u egtahay nin oday reer u ah oo aroortii hore baxay inuu shaqaalayaal u kireeyo beertiisa canabka oo goortuu shaqaalayaal maalintii kula heshiiyey diinaar ayuu beertiisa canabka ahayd u diray iyagii oo saacaddii saddexaad ayuu baxay oo wuxuu arkay qaar kale oo suuqa shuqulaan la taagtaagan oo wuxuu kuwaas ku yidhi idinkuna beerta canabka taga oo wixii xaqa ayaan idin siin doonaa wayna tageen haddana saacaddii 6aad iyo saacaddii 9aad wuu baxay oo sidaas oo kale ayuu sameeyey saacaddii 11aad intuu baxay wuxuu arkay qaar kale oo taagtaagan oo wuxuu ku yidhi maxaad maalintii oo dhan halkan shuqulaan ula taagtaagan tihiin waxay ku yidhaahdeen maxaa yeelay cidna nama kiraysan wuxuu ku yidhi idinkuna beerta canabka taga goortii maqribkii la gaadhay sayidkii beertii canabka ahayd ayaa wakiilkiisii ku yidhi shaqaalayaashaada u yeedh oo mushaharkooda sii oo waxaad ka bilowdaa kuwii ugu dambeeyey ilaa kuwii ugu horreeyey goortay yimaadeen kuwii saacaddii 11aad baxay waxay wada heleen diinaar kuwii hore goortay yimaadeen waxay u malaynayeen inay wax ka badan helayaan iyaguna sidaas oo kale diinaar bay heleen oo intay qaadanayeen ayay odaygii reerka ku gunuunaceen oo waxay ku yidhaahdeen kuwan dambeeyey waxay shaqeeyeen saacad keliya oo waad nagala mid dhigtay annagoo sidnay shaqadii cuslayd ee maalinta iyo kulaylkii laakiin wuu jawaabay oo midkood ku yidhi saaxiibow xumaan kugumaan samayn sow diinaar igulamaad heshin waxaaga qaado oo tag waxaan doonayaa inaan kan ugu dambeeya siiyo intaan ku siiyey oo kale miyaanan ku hagaagsanayn inaan waxayga ku sameeyo wixii aan doono ma waxaase ishaadu ka xun tahay wanaagsanaantayda aawadeed sidaasay kuwa dambe u horrayn doonaan kuwa horena u dambayn doonaan waayo kuwa badan baa loo yeedhay laakiin kuwa yar baa la doortay intuu ciise Yeruusaalem ku socday 12 ayuu keli ahaantood waday oo intay jidka ku socdeen ayuu ku yidhi waxaynu ku soconnaa Yeruusaalem wiilka aadanaha waxaa loo dhiibi doonaa wadaadada sare iyo culimada oo waxay ku xukumi doonaan dhimasho waxayna u dhiibi doonaan dadka aan yuhuudda ahayn inay ku kacabaan oo karbaashaan oo isku tallaabta ku qodbaan maalinta saddexaadna waa la sare kicin doonaa markaasaa waxaa u timid wiilashii Sabidi hooyadood iyadoo wadata wiilasheedii wayna u sujuudday oo wax ka bariday wuxuu ku yidhi maxaad doonaysaa waxay ku tidhi amar in labadaydan wiil mid midigtaada midna bidixdaada boqortooyada ka fadhiistaan laakiin ciise ayaa u jawaabay oo wuxuu ku yidhi garan maysaan waxaad weydiisanaysaan ma karaysaan inaad ka cabtaan koobka aan ku dhowahay inaan ka cabbo iyo in laydinku baabtiiso baabtiiska laygu baabtiisay waxay ku yidhaahdeen waannu karaynaa wuxuu ku yidhi runtii koobkayga waad ka cabbin doontaan oo baabtiiska laygu baabtiisay waa laydinku baabtiisi doonaa laakiin inaad midigtayda iyo bidixdayda fadhiisataan anigu ma lihi inaan idin siiyo laakiin waxaa la siin doonaa kuwa aabbahay u diyaargareeyey 10 goortay taas maqleen ayay labadii walaalaha ahayd u cadhoodeen laakiin ciise ayaa u yeedhay oo ku yidhi idinku waad garanaysaan in quruumaha madaxdoodu ay u taliyaan oo kuwooda u waaweynaa ay xukun ku leeyihiin laakiin sidaasu dhexdiinna ahaan mayso laakiin ku alla kii doonaya inuu dhexdiinna u weynaado midiidinkiinna waa inuu ahaado oo ku alla kii doonaya inuu idiin horreeyo addoonkiinna waa inuu ahaado sida wiilka aadanuhu uusan ugu iman in loo adeego laakiin inuu adeego iyo inuu naftiisa dad badan furashadooda u bixiyo
kolkay Yerixo ka tageen waxaa raacay dad aad u badan oo 2 nin oo indhala ayaa jidka ag fadhiyay oo goortay maqleen in Ciise ag marayo ayay qayliyeen iyagoo leh Sayidow ina Daawudow noo naxariiso dadkii badnaa ayaa canaantay si ay u aamusiyaan laakiin si ka badan ayay u qayliyeen iyagoo leh Sayidow ina Daawudow noo naxariiso markaasaa Ciise joogsaday oo intuu u yeedhay ayuu ku yidhi maxaad doonaysaan inaan idiin sameeyo waxay ku yidhaahdeen Sayidow in indhuhu noo furmaan ayaannu doonaynaa Ciise intuu u naxariistay ayuu indhahooda taabtay oo kolkiiba waxbay arkeen wayna raaceen